asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. saaxiib yaal meel walbaad ku sugantii kusoo dhowaada channelkeenna Hogan 24 Media. waa anigoo Cabdulle Macalin Maalto. xulka Morocco ayaa noqday wadkii qaaradda Yurub kadib markii ay hal iyo eber ku garaacday xulka Portugal ee ay ka reebtay koobka adduunka. waxaana guushani ay keentay in laga diiwaangeliyo taariikho cajiib ah oo aan weligeed dunida soo marin. xulka waqooyiga Afrika ayaa waxa ay u soo gudbeen semifinalka koobka adduunka oo ay ku sugayaan xulka Faransa oo soo garaacay xulka England, iyagoo wareegga 8 ku soo garaacay Portugal, waxaana ka sii horeysay Spain oo wareegga 16 ay kaga soo adkaadeen. sidoo kale waxay isku group ahaayeen Belgium oo ay ku garaaceen wareegga koowaad, halka ay Croatia la galeen barbaro. ilaa iyo hadda Morocco lagama badanin koobka adduunka, waana xulka kaliya ee u soo gudbay semifinalka iyagoo aan dhinacooda dhulka la dhigin. kaliya xulka England ayaa haddii ay ka badan leedahay xulka Faransa la mid noqon lahayd. 8 rikoor cajiibka ah ayaa laga diiwaangeliyay ciyaartan, waana kuwa sare u qaadaya sharafta iyo karaamada Afrika, halka dalalka waaweyn ee Yurubna loo diiwaangeliyay rikooro fadeexad ah. balse intaanan u gudagelin barnaamijkeenna, like saar muuqaalkan si uu u gaaro saaxiibo badan, sheer leh oo la wadaag saaxiibadaada si aan u helno saaxiibo u wanaagsan sida adigoo kale. hana hilmaamin inaad follow dhahdo page-keenna, sidoo kalena subscribe dheh YouTube channelkeenna, gambaleelkana furo si aad u heshid barnaamijyada cusub ee aan soo gelinno. mahadsanid. haddaba aan ku bilownay, xulka Morocco ayaa noqday wadankii ugu horreeyay Afrikaan ah ee u gudba semifinalka koobka adduunka. saddexdii waddan ee hore Afrikaan ahaa ee u soo gudba wareegga 8 waa la reebay, waxayna kala ahaayeen xulka Cameroon oo sanadii 1990 la reebay, halka Senegal 2002 iyadana lagu reebay 8-dhamaadka, iyo sidoo kale xulka Ghana oo iyagana 2010 soo dhaafi waayay wareegga 8-dhamaadka. balse xulka Morocco ayaa markii koowaad ee 8 timid u soo gudubtay semifinalka. rikoorka labaad ee ciyaarta laga diiwaangeliyay ayaa waxa uu ahaa xulka Portugal ayaa markii ugu horeysay taariikhdeeda lagu reebay wareegga 8 koobka adduunka. 2 jeer oo horey ay 8 u soo gudubtay waxay u gudubtay semifinalka, waxayna ahaayeen sanadii 1966 oo ay Korea kaga badiyeen 5-3, iyo sanadii 2006 oo ay rigoorayaal 3-1 ah ku garaaceen xulka England. rikoorka saddexaad ee ciyaarta laga diiwaangeliyay ayaa ah in xiddiga Cristiano Ronaldo weligii uusan gool ka dhalin wareegga 8-dhamaadka ee koobka adduunka isagoo ciyaaray 8 jeer. sidoo kalena wareegga semifinalka ayaanu ka dhalin wax gool ah isagoo 27 jeer goolka toogtay 570 daqiiqadood oo uu ciyaaray. rikoorka afraad ee laga diiwaangeliyay ciyaartan ayaa ah Morocco 4 ciyaarood oo koobka adduunka ee ka socda Qatar ah ayaanan goolo laga dhalin, waxayna hal kulan dhaafeen rikoorkoodii 16 jeer ee ka horeeyay ee koobka adduunka ay ciyaareen intii u dhaxaysay sanadii 1970 ilaa iyo 2018 oo 3 jeer oo kaliya shabaqooda ay ilaashadeen. isu geynta tirada guud ee shabaqooda ay ilaashadeenna waa 7 ciyaarood oo koobka adduunka ah oo aan wax goola laga dhalin, waxayna isku mid ka yihiin waddanka Nigeria. ma jiro dal saddexaad oo Afrikaan ah oo shabaqiisa ilaashaday wax ka badan 7 ciyaarood. rikoorka shanaad ee ciyaarta laga diiwaangeliyay ayaa ah in goolhayaha xulka Morocco ee Yassine Bono oo ay maanta u ahayd ciyaartiisii 10aad ee xulka Morocco uu u saftay ayaa noqday goolhayihii koowaad ee Afrikaan ah ee 3 ciyaarood koob adduun ah shabaqiisa oo nadiif ah ka dhigay hal koob adduun gudihii. rikoorka lixaad ee laga diiwaangeliyay ciyaartan ayaa noqday in xulka Portugal ay sameysay qaladaadkii ugu badnaa ee sababa goolo laga dhaliyo koobka adduunka ee Qatar 2022, waxayna sababteeda lahaayeen 3 gool oo laga dhaliyay. rikoorka 7aad ee ciyaarta laga diiwaangeliyay ayaa isagana noqday Youssouf N'Neysri ayaa noqday ciyaartooygii reer Morocco ee goolasha ugu badan ka dhaliyay koobka adduunka, wuxuuna u dhaliyay 3 gool. arrinta cajiibka ayaa waxay tahay in Youssouf N'Neysri uu dhaliyay 3 gool isaga oo 3 jeer oo kaliya goolka toogtay, waana taariikh cusub uu dhigay Youssouf N'Neysri. rikoorka 8aad ee ciyaarta laga diiwaangeliyay ayaa ah shaxdii xulka Portugal ku soo galay garoonka waxay celcelis ahaan da'doodu ahayd 26 sannadood iyo 332 maalmood, waana shaxdii ugu da'da yareed ee abid xulka Portugal
u ciyaarta kulan koob adduun ah. waxaa intaa inoogu eg warbixinteennii oo aan idiin soo gudbinaya anigoo ah Cabdulle Macalin Alto. haddaba haddii aad ka heshay muuqaalkan, fadlan like saar, subscribe-na dheh adigoo gambaleelka furanaya si aad u heshid muuqaalada cusub ee aan soo gelina. hana hilmaamin inaad asxaabtaada la wadaagtid adigoo sheer garanaya muuqaalkan. mahadsanid.